qoyska Axmed Siciid Naalaye oo dalka dib ugu soo laabtay 35 sano kadib oo ay ku noolaayeen wadamada Canada iyo Mareykanka ayaa bilaabay fulinta mashaariic kala duwan oo dhanka waxbarashada oo faa'iido weyn u leh dadka ku nool gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn. Mashaariicdan oo kor loogu qaadayo waxbarashada carruurta ayaa waxa kamid ah dhagax dhiga maktabadii ugu horeysay oo loogu talagalay carruurta 3 sano ilaa 10 sano jirka ah ee ku nool gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn iyo nawaaxiga magaalada Laascaanood. dhaqaalaha ku baxaya mashaariicda maktabada dadweynaha ee loo dhisayo iyo mashaariic kale ayaa waxa ku baxaya dhaqaale gaadhaya $5 milyan oo ay fulinayso mashaariicdaasi hay'adda samafalka ah ee Gift to Lane to Grow Foundation. mashaariicda maktabada dadweynaha ayaa la bilaabayaa toddobaadkan waxaana maanta dhagax dhigay maayirka degmada Laascaanood iyo xogayaha degmada fulinta ee degmada Laascaanood. maanta waxaan halkan ku dhagax dhigaynaa library cusub oo ay yeelanayso magaalada Laascaanood. library-ga oo hirgeliyeen Ilaahay khayr siiye muxuu ahaa Axmed Siciid Naalaye iyo maamo Khadiija Cabdi Xuseen. waxaan leeyahay halkaad ka soo saarteen Ilaahay wax khayr qaba ay ku bedelo. waa mashruuc midhadhala, waa mashruuc aan soo dhaweynayno, waa mashruuc aanu ku faanayno. markay garteen intaasoo muxuu ahaa kunoo magaalada dhowr boqol oo kunoo magaalada ku nool inay wax ku akhrisato oo aqoon ka korsto, wax ciyaar maaha, waa wax yaalaha ajarka laga helo, waa wax ifya aakhiraba weligeed soconayso, waa sadaqa tujaariya. waxaan leenahay halkaad ka soo saarteen Ilaahay wax khayr qaba idinku bedelo. dadka kale qurba joogana waxaan leenahay war reer Siciid Naalaye hadday halkan maanta maktabadii noo dhagax dhigeen oo maktabad casri ah aqoontii bulshadana lagu dhisayo, qurba jooga kale gobolka u dhashana waxaan leeyahay war ku daydoodina mashaariic kale oo noocaasa oo dadkiinan baahan ay ka faa'iideystaan inaad u dhistaan baa idinka doonayaa. maktabadan maamul dowlad hoos ahaan iyo magaalada Laascaanood kullay magaalooyinka dalku waxay ku jiraan horumar iyo tartan. wuxuu ka qayb qaatay Ilaahay Khadiijiyo Aabo Axmed baa barakeeye horumarka goboladu ku tartamayaan bay qaybta libaax ka qaateen maadaama ay noo hirgeliyeen xaruntan aqoomeed oo ah maantana adduunka saad la socotaan waxa la isku dhaafay waa aqoonta. waxaan kaloo ugu hambalyeynaa magaalooyin cusub oo deegaanka ka mid ah oo asaaseen ku soo kordhiyeen. intaba waxa weeye waa waxqabad muuqda. iskuulkii abiyan waxay ka qabteen wax la qarin karo maaha iyo caawinada maanta ka bixinayeen. waxaan leeyahay dhammaanteen waynu guulaysanay. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. waxay noo ballanaa waxqabadkeenu ka shaqayno iyo qof walba inuu sixilqaamo oo dadka meelaha Yurubta iyo North America iska jooga ee muxuu ahaa kombiyuutarka iska dul fadhiya inay dadkooda sida reer Axmed Siciid Naalaye uga faa'iideeyeen. dhinaca kale dadweynaha ku nool magaalada Laascaanood ayaa soo dhaweeyay mashaariicdan dhanka waxbarashada ah ee tabarucaadda ah taasoo carruur badan faa'iido weyn oo dhanka waxbarashada u soo kordhin doonta. Wallaahi magacay waa Seenaa Cabdiraxmaan Muuse. waxaan ku noolahay gobolka Sool, waxaan ka mid ahay dhalinyarada jaamiciyiinta. waxaan deganahay sidoo kale xaafadda Cali Barre. library-gan naloo furayo wallaahi aad baan ugu faraxsanahay. waa library baahi badan loo qabay baan oran karaa. xilligii ugu habboonaydna waa la keenay. insha Allah waxaan rajeynaynaa inaanu ka faa'iideysano fursaddan qaaliga. waxa kale sidoo kale ka faa'iideysan kara awlaadda yaryar ee soo kacaysa ay ka mid tahay awlaadayda. marka aad baan u soo dhaweynayaa. waxaan u mahad celinayaa dhammaan ciidii ka qayb qaadatay. dhammaantood aad bay u mahadsan yihiin.